وتهي من المرة كسلوا تلفزيون عالمية الصومال سات الله يديم العالمية مثلا سات تلفزيون عالمية الصومال سات المكي حتى والله واحد بحير اللي جالس تاريخ الله طبعا. أنت رأيت طبعا كأجور رمو دام رأيت طبعا كأجور رمو واحد شيء سنتي كل يوم ساعات أو يكون كريشنتي حاول شيء ما يدري كذا شيء في الصومال يقتل واحد قرآن كي يدرس وسائل تسوية كل ما يستوي هذا الأسماء كل كصول يكمل الأخطو مستوي مركز كدولنا واحد مسوي كحمل نفسي كهوسين تيسير تدريسات وحاول نتحمل هذا لما تسكول بعد بعد نفسي قاعد حق وحنا لبس ندور تسكول برايف عشان قاعد في هذا الحمل لما تسكول دور تدريسين تسكول في أمريكا سنترال كان يوقع نفسي كسر بلاد بعد كده كسر سنوات أنا في المدربين 15 days قدر يسكول حمل في هذا الحمل شغال غير أنا واحد كان عطيه دوسي اللي ما قاعد يحطوا أو كده لما تسكول أسعار كان في هذا الحمل مركز درس وتاريخي أنت ودنا الجوري مركز طبعا واحد ودنا أمريكا سنة سكورة كل سنة بولي تقرير الطاقة دي جامعة مثلا نيويورك ولا بيس يونيفرسيتي جامعة سنة كبلا جامعة غير تخصص وحنا تخصصي واحد اللي أكاونتنج حساب أنت جامعة أمريكا كذا ميستي واحد شغال كبلا هذا نيويورك كمبري هو الأكاونتنج ولا كوبرس لايبران وهذا كذا شركة اللي برايس كوبرس ووتر هاوس كانوا شغالين شركة سنة كده إنه واحد شغال سيري بان حرمته من نيويورك إلى 6 سنوات متواصلة في شغالين كده إنه واحد شغال كمان يقول على وول ستريت ولا سولون براذرز وإنفستمنت بانك يالك 6 سنوات بان شغال كده واحد هو ويل بانك 1989 إلى 2004 واحد أنا كان يشتغل في السنوات يمكن أنا كجوي كان عادل إلى جون هوبكنز يونيفرسيتي لابد ديجري أو ماسترز أقدم من دعاها يوم كسبسن فاينانس كدي مركز ويل بانك وحنا كدي 2004 سكول بانك هو مقدم جامعة جورج ميسون يونيفرسيتي PhD اللي كانت إيكونومكس يمكن أنا واحد كوبري ديسرتيشن كيجا إسلامي بانكي فوقي عمرنا وحصو بحياة ممكن أقول شو الجماعة كذا أنا جلاي واتay inta markaasi waxyaabo kala duwan oo shaqo muhiim ah oo baad soo martay marka xilliga kan dalka Soomaaliya muddo 21 sano ayuu xilli dhacay dagaalo iyo colaado joogto ah marka maxaa ku kalifaaday inaad xilkaas qabato sababta ugu weyn oo runtii aan u go'aansaday inaan shaqada madaxweynimada soo shaqeeyo waxa weeyaan dadku maanta aad iyo aad waxay u yihiin marxalad adag ee khatarta ah waddankeena ku jiro sidii hadalkii aan khudbada halkan ka jeediyay Soomaaliya hadda waxaa ku jirta marxalad adag oo ay u badan tahay tiradii inay ka baxay shacabka Soomaaliyeed oo baarlamaanku ka wakiil yahay waxaa kaloo la og yahay Soomaaliya hadda in ilaahay nabadgelyadiisii ay gasoo jamciyadda qurumaha ka dhexaysa AMSOM ciidankeedu ay gacan xoog leh ka qaateen iyo ciidamada Soomaaliyeed ilaa maanta waxay waqtigan halka waddankii nabadgelyadiisii soo dhawaanayso hase ahaatee waxaan anigu aaminsanahay nabadgelyada Soomaaliyeed waxaa xasilin karaa waa ciidanka Soomaaliyeed marka waxaan anigu waadideeda ka bilaabay ugu hordeeyo sida Soomaaliya nabad ku noqon karto waa in la dhiso ciidankii Soomaaliyeed ama ciidankii booliiska waxaa kaloo aan aaminsanahay dastuurka waa wanaagsan yahay waddan dastuur inuu yeesho waana wanaagsan yahay in dastuur wanaagsan loo sameeyo hase ahaatee hadda waqtigan aan ku jirno ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad ay diyaar ugu tahay inay ku keedayso ka waxaana dastuurka ku saabsan in shacabka Soomaaliyeed loo siiyo fursad ay ku fahmaan dastuurku wuxuu yahay maadaama aan 20 sannadood dad badan oo Soomaaliyeed ku soo baaba'een rafaad badan Soomaaliya soo gashay nasiib darrada ugu weyn waxay noqon doontaa haddii iyadoo waxaasoo dhan Soomaaliya soo martay iyadaan laga fiirsan ama laga hubsan iyadoo dheer soo martay in si degdeg ah iyadaan loo fiirsanin maaragtay dastuur loogu dhaqsado marka anigu waxaan jeclaan lahaa arrintaa dastuurka in ummadda Soomaaliyeed fursad la siiyo looga sharaxo macnaheedu waxay tahay iyo noocay dowladnimada qaadanaysa ummadda Soomaaliyeed iyagaa talada iskale kaloo labaad waan kala kusii daraya waxa weeyaan nasiib darrada kaloo ugu weyn Soomaaliya waan isu sharaxay arrimo badan bay isku dayeen jamciyadda qurumaha ka dhexaysa
inay arrimaha Soomaaliya xal u keento xalka Soomaaliyeedna waxa keeni kara waxa weeyaan waa dadka Soomaaliyeed oo keeni kara marka waxay la muuqataa aniga ay ugu baahan tahay in arrimo badan oo aad u murugsan oo xagga siyaasadda ku saabsan in aan fursad loo siinin in dadka Soomaaliyeed ay ka hadlaan arrimaha murugsan oo aan weli hadda dunida kalooyinka soo jeedinayna Soomaaliya waxaa ka mid ah sidii Soomaalida marka ugu horreysay ay talo gaar lahayd in sabab walba Soomaaliya noqonaysa arrimahaas waa arrimaha la taabanay waa arrimo waqti qaadanaya marka ilaa hadda wixii la soo qabtay oo dhan arrimaha lagama hadlin waa arrimo u baahan in Soomaaliya u baahan waxaa kaloo loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed dagaal dheer bay soo mareen in la heshiisiyo oo la isu keeno si nabad sidii nabad maaragtay waddanka ugu imaan lahaa way dadka heshiiyaan waxaa kaloo ka mid ah arrimaha quwad iyo musharaxnimada in xagga dhaqaalaha haddaad eegtid dadku waxay waagi hore aaminsanaayeen meesha keliya oo dadku shaqada u raadsan ay dowladda tahay hase haddee waqtigan hadda la joogo ilaa hadda dadka Soomaaliyeed waa dad ilaahay siiyay hayo khaasatan xagga tijaarnimada ama macaamiisha waxaan aaminsanahay in haddii ummadda Soomaaliyeed ay dhulkeeda nabad ka gasho in uu dadka Soomaaliyeed macaamiishakooda dhisi doonaan oo waddankeena uu ka horkaci doono marka taasina waa kaloo ku daraya waxa weeyaan xagga dowlad wanaagga waxaan aaminsanahay meel kasta dunida waxaa laga yidhahaa waddanka Soomaaliyeed waa waddanka ugu musuqmaasuqa badan dunida ama wuxuu ka mid yahay wadamada musuqmaasuqa badan waa nasiib darrota marka waxaan aaminsanahay haddii ilaahay aan madaxweynaha jagada ilaahay igu guuleysiiyo in ummadda Soomaaliyeed aan u samayno hab wanaagsan oo wixii soo galo dakhli iyo wixii kaloo dhanba ay iyadu maaragtay si cadaan oo dadku arki kara maamusho marka dadka ku soo galo arrimahaas ka mid ah ugu wadida wixii dadka oo ilaahay hadda ma leeyahay marka aniga iska soo istaagay marka asxaabta waa intii jiro ninka jira waxa la yiraahdo saysato Soomaaliya waa lagu dhadaa markaas ay dadka soo jira tahay gaar ahaan wax ka dhig wixii ka jira waa la daraarayaa dadka soo jira tahay markaas inta Soomaaliya waxaan garanayaa marka waa soo dhaweynaa waan ku hambalyeynaa waan maasanta madaxweynimada ilaaha baxsha ma wax iskaayo darajada qofka ilaaha gaarsiiyo qofna gacantiisa kuma kasban kara qofku ilaahay ugu talagalo ma madaxweyne Soomaaliyeed noqonay 200 baa laga yaabaa inay sharxan tahay hadduu ilaahay kugu talagalo waa helaysaa laakiin haddii aad weyso darajada wasaare iyo waxyaabo kale badan baa jira madaxweynaha ma yaroonaya iska fadhiisanin waxa kale oo tartan oo ku soo dhaweynaa assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh سؤال واحد مسعود ما سيان إن شاء الله تعالى وقتي قبل ويان وحين قصوا حدودنا شركة دي الناس عنا ساعة فراغ طبعا الناس قبل يوم قرأ عبد السلام حسن إن شاء الله تعالى قرأ قصوا الأول. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدين والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد مدحوينها قولها دقنكا يمسرح مدحوينها Soomaaliya جاليته iyo dadweynaha iyo madsafta faraha badan ee ka soo qayb gashay xafladda quruxda badan السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلامك بعد سلامي بعد وقتنا وإن بدل بعد فديين وصوك هوبيا waxaan leenahay laba saddex kalmadood baan oranaya oo ah ku saabsan sharaxa madaxweynaha musharax ku soo dhawow qaatumo madaxweyne musharax madaxweyne Soomaaliyeed baa tahay sidii ragga hore sheegayeen ciise garab soofo oo kale iyo anagu asaas baan ku nahay baan qaatumanahay musharax ka baxsatu weyn baa tahay waxa kale ku sheegaya amaad kaaga mahadcelinaya sidii quruxda badneed su'aalaha uga jawaabaysa runtii adiga oo laga yaabo inay markii koowaad oo macfarintan leeg oo kala madaxweynaha ku sharaxay su'aalaha soo kale la weydiiyo haddana si munaasib ah meesha u dhigtay xisaabta ku darsada waxaan u maleynayaa waxa la yiri madaxweynaha Kiiriya halmay oo wasaaradda aqoonta marka aqoonta inkasta ragga ka wareeyeen baan maleynay ganacsatadii ka wareeysay diga marka waxaan isagana way ka sokeeyaa waxaan leeyahay ku soo dhawow salaadi baa dhow
dembigeenna allah dhaafo ilaahay dembigeenna ha dhaafo ilaahay khayr meesha isugu keenay khayr kuwa khayr isugu yimid khayrka allah ina ka dhigo hawshaas ninka ilaahay ha fududeeyo uu soo gudbay ilaahay ha fududeeyo ilaahay dinkii innagana kuwa gacan qabta allah ina ka dhigo oo kuwa ku guulaysta hawsha allah ka dhigo allahumma salli ala muhammad fatih